waxaa qiso ah oo adeerkay aabbahay la dhashay uu ii sheegay inuu isagoo tafsiirka bilaabin uu nadar galay oo uu yidhi waxaan ku dhaartay ama ilaahay nadar ugu galay in aqal kasta oo Soomaaliya leedahay codkayga uu galo tafsiirka hor intuu soo bilaabay bay ahayd tafsiirkii markuu akhriyay sidii bay noqotay aqal kasta oo Soomaaliya leedahay codkiisa ugu gaaray magacayga waa Dr. Maxamed Sheekh Umar Faaruq waxaan caawa munaasabad u ahayd boogga Sheekh Umar Faaruq laga qoray oo waalidka ah kitaabkaasoo muddo dheer qaatay ilaa iyo 2009 ilaa hadda aan soo waday muhiimadda aan ku soo koobnayna waxay tahay taariikh nololeedkiisii iyo sooyaalkiisii taariikheed iyo sidoo kale muxuu ahay dacwadii saamaynta uu ku lahaa bulshada saamaynta ku lahaa siyaasadda saamaynta ku lahaa intaba muhiimadda aan ugu talagalna waxay in ummadda aan ku dhiirigelino inay hiddihii iyo dhaqankii iyo turaadkii iyo taariikhdii culummada laga dhaxlay dib loo sii nooleeyo waxaan ilaahi subxaana watacaala aan ugu dhowaanaynay inaan sheekhii ugu baarinimo samayno inaan taariikhdiisii ummadda u soo bandhigno taasoo insha allahu tacaala aada u baahday sheekha halkii uu ku dhashay iyo deegaanadii uu cilmiga ka dhigtay haddii aad si kooban nooga hadasho sheekha deegaanku ku dhashay wuxuu ahaa deegaankaas Soomaali galbeed loo yaqaano kilinka shanaad buu ahaa magaalada ku dhashay waa tuulada la yiraahdo Carmaale oo hadda laakiin magaalo weyn degmo noqotay gobolka Shabeelle dhulkaas wax ku soo bartay wuxuu ka dhashay qows ama usro ku caanbaxay diinta islaamka oo lagu yaqaano abiiba sheekh ahaa awowgiis xaaji maxamuud aabiis waa xaaji cabdisabdaan awowgiis waa xaaji maxamuud iyo awowgiis wuxuu xaaji maxamed ah intaba dad culmay ahaayeen marka waxaan dhihi karnaaba tarbiyada iyo aqoonta intaanu meel kala aadin xaafadda ayuu ku soo bartay walaalihii oo isaga ka weynaa sida sheekh shaafici xaaji cabdi oo kale iyo sheekh murshi xaaji maxamed oo kale oo in adeerkii ahaa ayaa ka mid ah dadkii diinta uu ka bartay gaar ahaan luqadda carabiga weliba uu ka bartay markii laga soo tago dadka ehelkiisa ah maxaad nooga sheegi kartaa culimmadii uu wax ka bartay markuu dhalinyaro noqday wuu baxay ilaa iyo wuxuu aaday muxuu ahay u xeraystay inuu Soomaali galbeed dhexdeeda wax ku barto wuxuu kale intuu gaaray Kenya gaar ahaan magaalada Mandheera culimmadii wax ka bartay ee Mandheera joogay waxaa ka mid ahaa Sheekh Maxamuud Dakhar ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa sidoo kale Sheekh Cabdikariin Sheekh Khaliif ayaa ka mid ahaa muxuu dhaqane waxaa kaloo ka mid ahaa culimmadii wax ku soo bartay Sheekh Yuusuf iyo culimo kaloo tiro badan Sheekh Weli oo Barre iyo Sheekh Yuusuf marka culimadaas ayuu tafsiirka soo bartay sheekhu wuxuu sheegay inuu tafsiirka wada dhammaystirin laakiin qaybo ka mid ah uu bartay intii kalena uu isaga dadaalkiisa ku bartay laakiin magaalada Muqdisho markuu yimaadana culimada wax ka bartay waxaa ka mid ah Sheekh Ibraahim Suuley oo u xareystay waxaa ka mid ahaa Sheekh Nuuridiin Cali Colow oo caqiidada tawxiidka ka qaatay jaamacadda heer nooca ayuu ka gaaray علومta diiniga markuu ka baxay dugsigii sare ama macadkii sare la oran jiray macad islaamul islaami magaalada Muqdisho ku yaalay hadda meeshan uu ku yaalo iskuulka hoyga xamar la marafar Muqdisho wuxuu tagay magaalada Madiina jaamacadu kale waxay jaamaca islaamiya oo Madiina Munawwara ku taala wuxuuna galay kulliyada dacwa oo usuuludiin wuxuuna ka qalin jabiyay sanadka markuu ahaa 1980kii wuxuu soo bartay shareecada gaar ahaan dacwada iyo usuuludiinka Sacuudiga ay sheegtay Sacuudiga sheekh muddo ku noolaa bal xiriirkiisa asagii Sacuudiga ka waran muddo dheer ayuu ku noolaa oo 40 sano ah ma ku dhowba ayuu ku noolaa waqtigii uu tagay 76 ilaa iyo intii uu ka geeriyoonahay 2011 intaas ayuu ku noolaa xiriir fiican ayuu bulshada qaybeeda kala duwan ku lahaa Soomaalida waa la wada ogyahay dadka uu ku noolaa oo carabta Sacuudigana xiriir fiican ayuu la lahaa xagga dacwada ayuu u qaabilsanaa waxaan xusi karnaa sheekha markii uu dhameeyay jaamacadda in uu tawdiif helay oo shaqo codsaday oo kadibna ay dawladda Sacuudiga gaar ahaan wasaaradda awqaafta arrimaha diinta ay loo cayinay oo loo magacaabay inuu daaci ka noqdo Afrika waddanka Zambia laakiin sheekhu iska diiday oo wuxuu yiri aniga waddankaas luqad Soomaali loogama hadlo anna waxaan ku hadlaa af Soomaali waxaan rabaa inaan bulshada wax baro bulshadana wax gaarsiiyo tafsiirka quraanka ay dadka Soomaalida aad ugu yaqaanaan gaar ahaan in uu ku fasiro af Soomaali qani ah oo fasiix ah erayo badan oo dhinacyo badan oo deegaanada Soomaalida taabanayna oo dadku fahmi karaan uu ku fasiro taa maxaa la oran karaa halkuu ka kasbaday arrintaas waxaan oran karnaa waa sax sheekhu culum badan iyo funuun badan buu akhriyay laakiin midda ugu caansan ee Soomaalida meel bay joogto gaadhay waa tafsiirka quraanka kariimka ilaahay wuxuu qadaray 1962 in dad yar oo kooban oo 30 qof aan ka badnayn ay tafsiirkiisa ku tixnaayeen sida culimadii waaga joogto haddaba nool ay qireen Sheekh Maxamed Idriis oo kale laakiin maanta wuxuu gaaray bulshada Soomaalida qaybaheeda kala 20 milyan waxaan dhihi karaa in ay yar tahay guri uusan gelin
waxaa qiso ah oo adeerkay aabbahay la dhashay uu ii sheegay inuu isagoo tafsiirka bilaabin uu nadar galay oo uu yidhi waxaan ku dhaartay ama ilaahay nadar ugu galay in aqal kasta oo Soomaali ay leedahay codkayga u galo tafsiirka hor intuusan bilaabin bay ahayd tafsiirkii markuu akhriyayna sidii bay noqotay aqal kasta oo Soomaali ay leedahay codkiisii ugu gaaray sheekha waxa uu ka qayb qaatay shirkii carta ee Jabuuti sidoo kale wuxuu noqday xildhibaan bal doorkiisa dhanka siyaasadda nooga waran shirkii carta ayuu ka qayb galay dowladdii waqtigaa shirka lagu soo dhisay oo dowladdii carta ahayd oo dowladdii cabdiqaadir salax xasan ahayd isaga ayaa qayb ka soo dhisay isaga ayaa weliba dhaariyey marka waxaan dhihi karnaa geedi socodka nabadeed iyo dhisidda dowlad Soomaaliyeed inuu kaalin weyn uu ku lahaa ugu dambeyntii buug wuxuu ku qoran yahay af carabi dadka Soomaaliyeed waxay isweydiinayaan af Soomaaligii iyo goormaha laga rajaynaya kitaabkan waa kii u horreeyey oo carabi ku qoran laakiin waxaa jiri doono in qaybta dambaad ama editionka labaad ama dabcada labaad inay ku soo bixi doonto luqadda Soomaaliga marka waana dareen bulshada ay jecel yihiin inay wixii fahmaan oo ay akhriyaan marka in dabcada labaad insha Allah tacaala ay luqadda Soomaaliga noqoto dad baa isla markiiba hawshaas la wareego mashruucaas qaatay oo yidhi naloo fasax annaga ayaa ku qorayno luqadda Soomaaliga annagana aan fasaxiisiinay marka waxaa kaloo laakiin aan bulshada u sheegi lahayn inuu jiro tafsiirkiisii Soomaaliga ahaa oo hadda loo bedelay qoraan oo hadda ay dhowr juz qoran tahay oo isagana insha Allah tacaala bandhiga ku xigo noqon doona sanadka soo socda insha Allah tacaala waa tafsiirkii quraanka oo luqadda Soomaaliga ku qoran oo sharaxii sheekha ah kaanu soo dhaw barakallahu